السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو أن سلام جرال كسبسكرايب صار شعيب برو ميديا كان بلال كفرصو فيديو كسكو صدعو مقال كان لايك صار. أصحابتو أن سلامي كسو دوادا شيكا دي هوركهد ساعد وحيد هل ساعة إلا باتني اللح كدب وحان السعودي قولك صاحبتي وحوني إيجري 5 minute كدب وان أيان مركز أفرح سنة رنتي kadib waxaan xasuustay inaan furaha markaas aan ku soo hilmaamay guriga balse waxaan isdhahay waxaan suubiya ayaa markaa toonka ayaa la soo baxay saacada inta taa ayaa fiiriyay waxayna ahayd 1 saac iyo bar waardinteedina waxay jireen shaqada markaasi waxayna ka imaadaan shaqada sagaalkii habeenimo runtii waxaan xasuustay inuu guriga ayada ii jiro 10 second kadib waxaan dareemay shanqar inay markaasi soo daba socoto qof amal kadib hoos ayaa markaasi ku arkay soo daba socda runtii aad ayaa markaas u cabsaday aniga kaligeyna waan ahaa laamiga ayaa markaas taagnaa kadib meesha dhan runtii aad ayaa markaas u cabsaday aniga xoogaa markaas socdo gacan ayaa markaas itaabatay runtii gadaal markaa fiirin wax waan waayay anigana markaas waxaan u dhabaa guriga ayeeday wadada geeskeeda ayaan markaas saarnaa kadib ayeeday ayaan maxaan qoray ayay macaan waa ku soo socdaa meesha iso istaag banaanka kadib waxay iso qortay okay ayeeday ayaa markaas ku arkay ayadoo markaas soo istaagtay banaanka runtii aad ayaan markaas u farxay ayeeday markaan arkay inay banaanka ii taagan tahay kadib markaas waxaa isdhahay waa fiican tahay qofku ma soo daba socdo waa nabad qabtaa balse shanqar ayaa markaas hadana dareemay inay soo daba socoto qof ayaa markaas afduubtay intaaya ayeeday intaana gaarin kadib caloosha ayuu markaas iga qabtay iyo afka runtii aad ayaa markaas u neefsan waay afka aan ka neefsan lahaa markaas wuxuu iga saaray gacanta aadna uu i caburinayay ninkaas wuxuu yahay waa garan waay runtii kadib anigoo markaas rabay inaan fakado waxaan arkay qofkii markaas ila hadlaayo oo dhaayo nooyo way ku dhamaatay inay iga badbaadaysaa moodamiya ayada u socotay miya wala caawa dhiigayga ku soo carwa dhiigaaga carabkayga caawa kugu leefaya iga mana baxsanaysi runtii aad ayaa markaas aniga u cabsanay kaligay ayaa ahaa markaasna waa ilmeenay aadna waa u oonay calooshina xoog ayuu markaas yahay wuu i kala tuuray runtii dhulka ayaa markaas ku dhacay aniga markaas cawaadayo kadib ninka ayaa markaas si fiican uma arkin uu soo kar istaagay runtii ninka markaas indhiis waxay inda markaas gudud aniga aad ayaa markaas u naxay ilkiisana waxay ayaan ilka cad ninka markaas wuxuu ahaa nin timan la'aan oo markaas i kor taagan oo wajigiisa iyo afkiisa iyo sankiisa la kala garanayn runtii wuxuu ahaa nin markaas cad kadib wuxuu yiri nooyo waa ku cunjinayo ayadoo yartay in aadamiya ama aniga aan gaajo u dhinto oo adina meelaha isku marmartay wallaahi inuu ku daynayn waa ku cuni karaa moogi kadib nin kale ayaa qof kale ayaa markaas iga taabtay garabka runtii ninka buu iga fuqay anina dhunteedii waxay lahayd xaag qof inuu xaagtay amal asaga dhibaato ayuu markaas ii geystay qof ayaa markaas yiri gurigaada mar dambe ha uga soo tagan furaha waayo furaha wuxuu ka anfacayaa noloshaadii markastana waa inaad furaha soo qaadataa ninkana markaas wuxuu yiri waa inaan markaas aan ka celiyaa ninkii ayaa markaas isdagaalay runtii qoorta ayuu markaas ka gooyay ninkii anigana runtii waan soo kacay waxaan arkay waardinteedii iyo ayaday markaas kor taagan runtii aniga markaas waan yaabanaa maxaa dhacay ayaan lahaa kadib qof ila hadla markaas waan waayay dhakhtarkana wuu i kar joogay kadib waxaan fiiriyay gabar wax qarqaraacayso computerka kadib waxaan dhahay adoo mahadsan waxa ay sheegtaa walaashay waxa inta la keenay kadib waxay dhahday ma ogid miya ina adig kaliga aad socotay habeen saqdaxay ayada ayaana meeshas ka dhabeed ayadana way naxday waxay aragtay adigoo markaas meeshas yaalo oo dhiig u ka daadanayo oo kaliga saas ayaana meesha lagu keenay dhaawacana hadda saas ayaa marka dhuunta lagaaga dhayay kadib runtii waxaan dhahay waa mahadsan tahay naagta markaas way fiirisay runtii isha ay jibisay isha markii ay jibisay waxaan ka dhax arkay ninkii
runtii ninka ayaa markaas ka dhex arkay aadna waa u qeyliyay waalidiinteeda way yaabanaayeen waxay ugu dhacay kadib meeshii markaan fiiriyay naagta inay sii socoto waaba cidlaba geeskayga waxaan aad uga naxo runtii waalidiinteedii shaqada ayay markaas ka imaadeen waxaan arkay furihii oo meesha saaran sheekadana halkaas ayay ku dhamaatay waxaan ogaaday furaha inuu qof iisoo badbaadiyay